Bismillah. Asalaamu calaykum waraxmah. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka Anki. Muuqaalkan wuxuu muuqaaladii hore uga duwan yahay. Waxaan si rasmi ah u dhex jibaaxi doonaa ama si aan u booqan doonaa barnaamijka Anki annagoo markaa farta ku fiiqayna adeegyada uu leeyahay iyo qaababka loo isticmaalo. Waa muuqaal aan ku dul marayno sida uu u naqshadaysan yahay barnaamijkan. Marka waxaan ka bilaabaynaa inaan horta soo degsano barnaamijka Anki. Sidaan soo sheegnayna marka uu mobilka ku jiro waxaa loo yaqaanaa Anki Droid, gaar ahaan mobilada Android-ka ah waxaa loo yaqaanaa Anki Droid. Marka uu ku jiro mobilada sida iPhone-ka iyo kombiyuutarada Mac ah iyo iPad waxaa loo yaqaanaa Anki Mobile. Marka uu ku jiro Windows-ka ama kombiyuutarada Windows-ka waxaa loo yaqaanaa Anki Desktop. Ka hadda aan rabno inaan diiradda saarno aan insha Allah booqanayno waa midka lagu isticmaalo mobilada Android-ka sida Samsung. Si marka loo soo dejiyo barnaamijka Anki Droid waxaad tegaysaa Play Store-ka, dabeedna halkaasaad kala soo degaysaa. Play Store-ka markaan tagno waxaan ku qoraynaa meesha ayada ah Anki Droid baan ku qoraynaa. Anki Droid markaad ku qorto application-ka ugu horeeya ee ku soo baxa ayaad soo dejinaysaa. Aniga wuu igu jiraa oo wuxuu leeyahay open, laakiin adiga waxa laga rabaa inaad soo degsato haddii uusan kuugu jirin. Markaad la soo degto ee aad furto application-ka, shaashada ugu horeysa ama wejiga ugu horeeya qaabkan ayuu noqon doonaa. Wuxuu leeyahay collection is empty, macnaheedu waxa weeyaan waxba kuma jiraan. Meeshan uu leeyahay waa empty oo waxba kuma jiraan. Booskan waxaa iska leh wax loo yaqaano Dex. Anki wax uu u yaqaano Dex ayaa iska leh. Dexku wax kale maaha, waa folder oo kale ama waa khaanad. Dabcan waxbaa lagu shubtaa folderka, waxbaa lagu guraa ama la gashadaa. Waxyaabaa lagu guraayana wax kale maaha, waa su'aalihii iyo jawaabihii baa lagu gurayaa. Si kale haddaan u dhigo waxaa ku jira casharadii baa ku jira. Calaamadaas pluska ah ayaan ka bilaabaynaa. Marka waa ku dhufanaynaa waxaa noo soo baxaya 3 option. 3daas qodob. Qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay create deck. Qodobka labaad get shared decks. Midka saddexaadna add note. Qodobka koowaad ee ah create deck samee wax loo yaqaano Anki waxa uu u yaqaano deck. Deck Anki waxay uga dhigan tahay waa folder oo kale ama waa khaanad. Haddaan xogaa eray bixin u raadino khaanadna dabcan waxbaa lagu shubtaa. Qodobka labaadna waa get shared decks. Shared decks hel khaanado la soo sheergareeyay oo dabcan ay soo sheergareeyeen arday kale. Khaanadaasna waxaa ku jira casharo. Haddii aan ku dhufto wuxuu igeenaa website. Website-kaas waxaa ku jira casharo. Casharadaas maxay yihiin? Waxay noqon karaan science noocyadiisa kala gedisan sida maadooyinka caafimaadka. Wuxuu noqon karaa geography, wuxuu noqon karaa history. Waxay noqon karaan waxyaabo fara badan. Luqadaha ku jira Carabi, English, Chinese, Japanese, France. Waa ay nooc oo maado ah ayaa website-kaas laga helayaa. Haddaan ku dhufto wuu igeen doonaa, waa arkaynaa insha Allah. Qodobka u dambeeya ee ah add note waxay ka dhigan tahay waa input-kii, waa meeshii input-ka ahayd ee laga soo gelinayay Anki, xogta looga soo gelinayay. oo marka adigu aad su'aalo sameysanayso, su'aalo khuseeya casharadaada marka aad sameysanayso
halkan aad ka soo gelaysaa oo halkaas aad ku dhufanaysaa add note ayaa leedahay. qodobka ugu horeeya bal aan ku bilowno maadaama uu leeyahay collectionkaagu waa maran yahay, waa empty. ugu booskan ama shaashadan noo muuqatana waxaa iska leh dexka ayaa iska leh ama folderka ama khaanadaha. marka isagaan samaysanayna marka hore aan ku dhufano khaanada magaca. dabcan magacaad u bixinayso waxay ku xiran tahay hadba casharka aad gelinayso waxa uu yahay. haddii aad doonayso inaad folderkaaga ku rido duruus ama casharo yani khuseeya oo ku saabsan maadada anatomiga, folderkaagu wuxuu noqonayaa magaciisu anatomy. haddii aad ku gurayso su-aalo khuseeya taariikh, folderkaaga magaciisa taariikh ka dhig ama history ama taariikh. tusaalahan waxaan leeyahay anatomy. khaanad waxaa noo samaysantay anatomy ah. khaanado badan baan samaysan karaa hadba wixii aniga rabitaankayga ku xiran tahay. waxaan sameynayaa haddana Soomaali tusaalahan waan badsan karaa ilaa hadda. khaanado wax noqon karaan inta aad samaysan karto wax ka badan 100,000 oo khaanadood ayaad samaysan kartaa, laakiin wax la dhiirigeliyo maaha in khaanadaha intaa la eg aad hal mar wada samaysato. ma qurux badnayn, khaanadu way bataan, khaanadu waa inay koobnaadaan. khaanada saddexaad waxaan ka dhigayaa waxaan leenahay English. inta igu daa. khaanad markaad samaysanayso ama deck ankii waxa uu u yaqaano, markaad samaynayso qaabkaas u samaynaysaa. deck marka shaqada uu ku hayo wax kale maaha, waxaad ku shubanaysaa su'aalahaad ku shubanaysaa. khaanadihii waa noo samaysan yihiin. haddaan ku laabto isla meeshii iyada ahayd oo khaanad waan sameynay. buttonkan labaad muxuu yahay? buttonkan labaad inta aynaan gudagelin waa usoo laabanaynaa. buttonkan saddexaad baan rabnaa hadda inaan galno. buttonkan saddexaad wuxuu leeyahay add note. wuxuu la xiriiraa khaanadahan. qoraalka meeshii laga soo gelin lahaa si loogu kaydiyo folderskan ayuu u taagan yahay buttonkan. haddaan ku dhufto wuxuu i keenayaa shaashadan. shaashadan sida muuqata waxay iga sugaysaa inaan wax ku qoro. waxyaabahan insha Allah mar baan muuqaal gooniya ka sameynayaa, waa aad bay muhiim u tahay. meesha u horeysa waxay leedahay front, meeshan kalena waa back. front iyo back maxaa saas loo yeelay? dabcan waxa aan ka hadlayno ama applicationka ka hadlayno waa application flashcard ah. flashcard waxa uu yahayna waan naqaanaa oo muuqaal baan ka sameynay. flashcard dabcan waa sidii warqad oo kale. warqaddu waxay leedahay laba wajahadood, wajahada hore iyo wajahada dambe. wajahada hore waxaa lagu qoraa su'aal baad ku qoraysaa, wajahada dambena waxaad ku qoraysaa jawaabta. sababta asaa u yeelayso wax kale maaha, jawaabta xagga dambe ayaad ku qoraysaa sababtoo ah waad iska qarinaysaa oo su'aasha kaliya aad doonaysaa inaad ka jawaabto oo maskaxda aad tuujiso. kadib aad ka jawaabto, markaad ka jawaabtana aad daalacato xagga dambe ee waraaqda si aad jawaabta u hesho, isla markaana aad isula barbar dhigto jawaabtii aad sheegtay iyo jawaabta meesha kuugu qoran inay isleeyihiin. dabcan waa sidii caadiga ahayd la yaqaanay. marka halkan waa sidii oo kale, waa front iyo back. dabcan waxaan ka hadlaynaa waa digital. front waxaa lagu qoraa su'aasha, backna waxaa lagu qoraa jawaabta. marka aan ku qorno frontiga waxaan ku qoraynaa su'aal. su'aasha waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan su'aal waxaan qoraynaa Soomaali ah. waxaan leenahay goortii la aasaasay su'aasha waan qornay, jawaabteedana aan qorno. waxaan ku qoraynaa xagga dambe
inta markaad tiraahdo ayaa waxaad leedahay save. laakiin intaadan save dhihin ka hor waxyaabo fara badan bay tahay inaad tixgeliso oo aad iska hubiso. waxyaabaha iska hubinayso waxaa ka mid ah halkan u fiirso deck. waxaa ku qoran deck macnaheedu waxa weeye waa khaanadda aan ku save garanayo magaceeda waa inaad iska hubisaa. ka waran haddii khaanaddu ay tahay, dabcan haddii su-aashu ay tahay su-aal khusaysa Soomaali, khaanadduna ay ku tahay khaanad oo juqraafi ah, su-aashan automatically waxay geli doontaa khaanadda juqraafiga. waxbaa markaa isku khaldamaya, marka waxaa loo baahan yahay inaad markastaba taxadarnaanta aad badiso. haddaan soo furo halkaasaan ku dhufanayaa, waxaa ii soo baxaya baqshadan yar. kadib waxaan ka dooranayaa khaanadda ay tahay inaan ku save garayo su-aashan ama su-aalaha kale aan halkan aan ku ridi doono. Soomaali ayaan leeyahay, inkastoo Soomaali aysan ahayn oo taariikh ay tahay, haddana ka soo qaad inay macnaha Soomaali tahay. kadib waxaa leeyahay marka waa save garayn karaa, save ayaan leeyahay. inta aanan sidoo kale save garanin waxaan samayn karaa qaabka ay su-aasheedu u eg tahay ayaan sii daalacan karaa. haddaan ku dhufto halkaas, goortii la aasaasay ururka SYL waa su-aashii. anigu marka waxaa laga rabaa inaan ka fikiro anigoo maskaxda tuujinaya. marka aan jawaabta soo tuuro waxaan rabaa inaan dhaho systemka ama applicationka aan ka codsado inuu su-aashay tuso anigoo taabanaya buttonkan 1943. marka haddii jawaabtii aan sheegay markaan maskaxda tuujinayay iyo markii dambe aan jawaabta istusay, haddii ay labada jawaabood is yeelan waayaan, waxay ka dhigan tahay waan khalday bay ka dhigan tahay. marka waan save garanayaa, save baan leeyahay. haddaan soo gadaal usoo noqdo oo aan dib u fiirno maadadii Soomaaliga ahayd, waxaa ku jira hal kaar ama hal su-aal baan ku jirta, hal su-aal iyo jawaabteed ayaa ku jirta. marka haddaan ku dhufto sida caadiga barxadda su-aal weydiinta qaabkaana la igu weydiinaya. marka su-aasha marka hore waa soo sameynay, waan ka soo dhammaanay, kadib waa soo save garanay. markaan soo save garanay, qaabka rasmiga ah ee su-aasha la ii weydiin doono waa sidan. barxaddan baana la igu weydiinayaa goortii la aasaasay SYL waa goormay ahayd. intaan show answer intaan dhihin ka hor maskaxdaad tuujinaysaa, su-aasha ka jawaab. markaad ka jawaabto isla barbardhig jawaabta halkan kuu taallay jawaabtii aad bixisay. haddii ay kala duwanaadaan oo ay taadu khalad noqoto, systemka u sheeg oo ku wargeli inaad khaladay. haddii aad saxdayna systemka waad u sheegaysaa sidaas oo kale inaad saxday. qaabkee u sheegaysaa marka? buttoniskan 4 button wax kale meesha uma yaalaan, waxay meesha u yaalaan sidii go-aan looga gaari lahaa jawaabta aad bixisay. adigoo taabanaya mid ka mid a buttoniskan, systemka waxaad u sheegaysaa qaabka su-aashu ay kuula ekayd, qaabkii aad su-aasha uga jawaabtay ee ay kuula ekayd. ma kuugu adkayd, ma kula fududayd, ma dhexdhexaad bay kula ahayd? qaabkaasaad uga jawaabaysaa, waana muhiim. waxaana soo sheegnay barnaamijka Anki inuu xambaarsan yahay 2 fikradood oo kala ah active recall iyo spaced repetition system. active recall waxaa ka dhigan tahay maskaxda tuujinta, in maskaxda la tuujiyo ayay ka dhigan tahay. waa aniga hadda maskaxda tuujinaynay oo su-aashaan ka jawaabaynay. markaan su-aasha ka jawaabnayna systemka aan ka codsanaynay inuu jawaabtana tuso si aan isla barbardhigno jawaabtii aan bixinay iyo jawaabta systemku uu sheegayo inay isleeyihiin iyo kale. saasaa loo yaqaana active recall, tuujinta maskaxda inaad tuujiso. spaced repetition system waxay ka dhigan tahay waa in la kala fogeeyo waqtiyada aad arkayso
xogta waa spaced oo waad kala fogeynaysaa, waana repetition oo waa lagugu soo celcelinayaa. Marka halkan buttoniskani waxay khaas u yihiin spaced repetition systemki. Kaba soo qaad inaan khalday, waxaan u taabanaa again haddaan u taabto waxay ka dhigan tahay waxaa liigu soo celin doonaa oo su-aashani ay igu soo laaban doontaa wax ka yar 1 daqiiqo bay soo laaban doontaa. Haddii ay tahay inaan hard taabto waxay ka dhigan tahay su-aashan waan ka jawaabay laakiin way igu adkeed, waa ku raftay macnaha. Systemka waxaan u sheegayaa marka inay arrimuhu sidaas wax yihiin oo sidaas ay wax u jiraan, yacni kama been sheegaysid, ma fiicnaan inaad ka been sheegto si systemku uu kugu fiicnaado maskaxdaada iyo isagana ay xiriir fiican u wada yeeshaan. Waxa fiican inaad runta u cadeyso. Buttonka hard waxay ka dhigan tahay waa su-aashii waan ka jawaabay laakiin waan ku raftay, waqtiyadaas oo kale la taabtaa. Buttonka good waxaa la taabtaa su-aashan waan ka jawaabay, waxay ahayd dhexdhexaad, way fiican tahay, culayska aan kala kulmay aad buu u yaraa, saasay ka dhigan tahay. Buttonka easy waxay ka dhigan tahay su-aashan waxay ahayd sidii faatixada oo kale, kal faatixa ayay ahayd. marka easy طبعا easy haddaan taabto waxaa ku qoran 4 days, 4 maalmood ma arkaysid waa macnaheedu ya. haddaan u taabto 4 maalmood ma arkaysid. tusaale ahaan marka haddaan u taabto su-aashan oo kale kaba soo qaad inay imtixaankayga ku jirto oo imtixaan aan diyaarinayo, haddii su-aal halkan saaran aan u taabto easy oo 4 maalmood fogeynaysa su-aasha iga qarinaysa oo aan la itusi doonin, imtixaanna aan leeyahay berito, su-aal hadda aan 4 maalmood u taabtay oo macnaha aan u jaray anoo beri imtixaan leh, macquul ma tahay inaan arko? seen ku arki karaa macnaha? soo lugooye maaha. markaasoo kale waxaa jirta xal kale oo barnaamijka aad uga codsan karto inuu kuu soo dedejiyo su-aalaha ama xogta safarkaas ku maqan ama safaradaas dhaadheer ku maqan, inaad tiraahdo haddaba ii keen maadaama beri aan leeyahay imtixaan. option noocaas ayaa jira oo meesha insha allahu aan arki doono haddii la yiraahdo. buttoniskani marka waa buttonis loogu talagalay in aad ku qiimeyso systemkana aad ugu sheegto qaabkii aad su-aasha uga jawaabtay, adayg miyay ahayd mise fudayd bay ahayd. waana buttonis ay khaas la tahay fikradda loo yaqaano spaced repetition system. hadda marka waxaan leenahay again baan u taaban annaga ka soo qaadanaynaa khaladnay. marka buttoniskan meesha yaalla waa buttonis ay gaar la tahay ama ay khaas u leedahay ama looga jeedo in loo isticmaalo spaced repetition. fikraddii ahayd spaced repetitionka oo iyadoo ah fikrad aan ka soo hadalnay hadda ka hor kuna salaysan cilmi baaris. marka qaabkaas ayaa su-aasha ama su-aalaha loo samaystaa oo loogu gurtaa. muuqaalkani waa un muuqaal guud mar ah oo aan ku booqanayno barnaamijka Anki, ma doonayno inaan sii dhex galno. waxaan ugu talagalnay inaan keliya dhex jibaaxno oo aan farta ku fiiqno agabyada iyo adeegyada uu barnaamijkani leeyahay iyo qaababka ay tahay in loo isticmaalo ayaan xagga sare ka fiirinaynaa oo keliya. marka muuqaal gooniyan ka sameynaynaa qaabka loo samaysto flashcard ama su-aal loo geliyo, qaababka ugu fiican ee su-aasha loo geliyo. muuqaal gaar ah insha allah kasoo sameynayaa. aan usoo laabto meeshii iyada ahayd. buttonka ugu horeeya waan soo aragnay, buttonkaas ugu hooseyna waan aragnay. kan dhexe muxuu yahay? kan dhexe aan eegno. haddaan ku dhufto wuxuu geenaa websitekaas waxaa ku jira boqolaal khaanadood oo ay ku jiraan su-aalo, casharo, waxay isugu jiraan luuqado iyo science-ba. waa u jeednaayo Carabi, Chinese, English, France, German,
kulligood waa yani waxaa laga sameeyey waa dadka dabcan u baahan inay bartaan luqada. haddaad u baahantahay inaad barato luqado carabi oo kale waa ku dhufan kartaa. waxaa lagu geenaa qaanado fara badan oo carabi ah oo ay soo sheergareeyeen arday. qaanadaasna waxaa ku jira su-aalo carabi la xiriira oo lagu baranayo vocabulary-ga erebixinada. sidaas lamid ah luqadahan oo dhan waa lamid. Chinese waxaa soo sheergareeyey arday iyaguna dee dabcan Chinese ah. saasay ka dhiganta. marka haddii aad u baahan tahay waad la soo degi kartaa. marka ay noqoto dhinaca sayniska iyo artska waan u jeednaa maadooyinka caafimaadka ku jira geography, history, law, math. hadba wixii ku anfaca ayaad la soo degaysaa. tusaale ahaan haddii aan la soo degno biology oo kale tusaale ahaan ama geography oo kale aan la soo degaynaa. waxaanu qaanadooda arkaysaan waa geography oo keliya, wax kale kama hadlayaan. qaanadii ku anfacda ama qaanadihii ku anfaca ayaad la soo degaysaa oo keliya. haddii aad ka weydo qaanada aad doonayso ama qaanada aad isleedahay way fiicnaan lahayd inaad soo degsato, haddaad meeshan ka weydo waxaa kuu bannaan inaad halkan ka baadho oo aad ku qorto waxa aad doonayso. tusaale ahaan waxaan soo dejinaynaa qaanada ugu horeysa aan soo degsano. markaan ku dhufano waxaa layna tusayaa meeqa MB ayay qaadan kartaa, inta sawir ee ku jirta. macnaha waa preview kooban oo si guud lagugu tusaayo sida ay u samaysan tahay. inta su-aaloodii ku jirta 320 nood baa ku jira. sida ay u samaysan yihiin su-aaluhu waa calan iyo maaragtay khariidado. marka waan soo degsanaynaa, kanaan soo dejinaynaa, waan tijaabinaynaa. waa tusaale ahaan qaanadaha kale oo dhan saasaa u soo degsan kartaa. mana aha qaanadii aad yani qaanad kasta inaad soo degsato. qaanadii aad u baahan tahay oo keliya ayaad soo degsanaysaa oo keliya. marka waxaad leedahay download. marka aad soo download gareyso wuxuu kuu soo geli doonaa maskaxda mobilkaaga ama maskaxda hadba aaladda aad ku soo degsanayso. haddii computer tahay iyo haddii mobile uu yahay, meesha maskaxda ama memory-ga ayaad ka heli kartaa. haddii kale waxaad dhigi kartaa adigoon meeshaas tegin open. haddii message-kan ama fariintan yar ay ku muuqato open ayaad leedahay. haddii ay ku muuqan weydo si toos ah u tegaysaa meesha maskaxda ama memory-ga kuugu jira. markaad ku dhufato ood open tiraahdo baqshadan yar baa kusoo baxaysa. waxaad leedahay import ama add. markaan ku dhufto waqti kooban kadib wax ka yar 1 daqiiqo wuu iisoo geli doonaa qaanadii ama maadadii hadba aan soo degsaday. marka qodobkan ah get shared dex waa qodobka keliya. dabcan qodobka keliya ma dhihi karo, laakiin waa qodobada wuxuu ka mid yahay qodobada farakutiriska ah ee u baahan internetka u baahan. ankii sidiisuba waa flash, ku darso waa offline. haddana intiisa badan waa offline oo wax online ah ayaa iska yar. waxyaabaha u baahan online-ka waxaa ka mid ah qodobkan oo kale iyo qodobo kale 1 iyo 2 ah. mooyaane sidiisa kale waa offline waana flash. wuu iisoo degay. waxaa meeshan igu qoran oo la ii sheegayaa inaan soo dejiyey 982 su-aalood inay meeshan ku jiraan. bal aan fiirino. qaanadii aan soo degsanay waa tan. haddaan ku dhufto waxaa leeyahay England, constituent country of the United Kingdom. capitalkeeda ii sheeg baa leeyahay. sida meesha ka muuqata England capitalkeeda ama caasimadeeda. ka hor inta aanan su-aasha daha ka faydin waxaa laga rabaa inaan active recall sameeyo. dabcan waan samayn karaa hadda show answer, laakiin anigoo aan show answer dhihin baan rabaa inaan horta iska jawaabo su-aashaas
waa haddii aan muxuu ahaa aqoon hore u leeyahay oo kale ama aan isku dayo. England waxa weeyaan caasimadeedu waa London. show answer baan leeyahay marka hadda London. waan saxay, waxaan taabanayaa good. su-aasha xigta ayaa la ii gudbinayaa marka. waxaad moodaa in la ii kala gediye haddana. okay, caasimadii ayaa la siiyey oo waa London. waxaad sheegtaa wadanka caasimadiisu ay tahay London. haddaan ka fikiro waxaan leeyahay waa Britain ama England. waan saxay haddana good baan leeyahay. Scotland caasimadeedu sheeg. Scotland caasimadeeda tan way ugu adag tahay. ma sheegi karo, waxaan leeyahay show answer. waa inaan bartaa. waa Edinburgh. weligiiba ma maqal Edinburgh. maadaama waan khalday good ma dhihi karo, waxaan leeyahay again. safar 1 daqiiqa ah ayaan u diray, way u soo laabanaysaa si automatic ah. United Kingdom caasimadiisa sheeg. UK caasimadiisu waxaan leenahay waa UK. waa untii ii kala gediyey. waa London. waan saxay good baan leeyahay. Northern Ireland caasimadeeda capitalkeeda sheeg. show answer baan leeyahay maadaama aanan garanayn kulley. show answer. Belfast ayaa loo yaqaanaa. waan garan waayay again baan leeyahay. sida ku muuqata saasay markaa u soconayaan. su-aasha xigta. France caasimadeeda Paris. hadda waxaa isweydiin mudan, waxaan taabanayay maanta oo dhan waxaan dooranayay su-aasha marka aan maskaxda tuujiyo ee aan active recall sameeyo ee aan show answer dhaho kadib systemka ayaan la xiriirayay anoo u sheegaya qaabka su-aasha aan uga jawaabay siday ila ekayd. miyay igu adkayd, adayg miyay ahayd mise fudayd bay ahayd. botaniskan saan soo sheegnay waa botanis waxa weeyaan space repetition loogu talagalay in lagu kala dheereeyo muxuu ahaa muddada aad arkayso. dabcan waa repetition, laakiin repetition kuma aha repetition macnaha repetition xad dhaaf ah oo maanta dhan aad soo celcelinayso maaha. waa repetition yani aan dhihi karo waa repetition spaced ah. okay, saas way tahay again iyo good ayaan u taabanayay inta badan. wixii aan khaldo again, wixii aan saxana good baan u taabanayay. sababtaan u taaban waayay hard ama easy waa maxay? botonka hard sidiisaba waxaa loo taabtaa su-aalaha aad ka jawaabtay laakiin aad sida dirqiga ah ama rafaadka leh aad uga jawaabtay ayaa loo taabtaa. easyna waxaa loo taabtaa su-aalaha aad sida fudaydka leh uga jawaabtay, sida degdega leh uga jawaabtay. sidaas ay tahay su-aashii adag waxaan u taabanayaa again. su-aashii saxsan ee ila fududna good. hard iyo easy sababtan u taaban waayo waxa weeye horta botonka hard wuxuu dhaawac u geysanayaa kaarka kuu samaysan ama su-aasha kuu samaysan. qaabka uu dhaawaca u geysanayo mar kale ayaan sharxi doonaa, laakiin waxaa fiican inaad kasii digtoonaato oo aadan taabanin botonkaas. sidiisaba ha isticmaalin, bilaash buu meesha u yaallaa. botonka easy isaga wuu ka dambi yar yahay, wuu ka fudud yahay. macnaha botonka hard isaga waxaan ku diiday, wuxuu dheereynaa, wuxuu aada u fogeynaa maalmaha, uu aada u fogeynayaa. marka lama doorbido oo lama isticmaalo. haddii la isticmaalayana waa la yareeyaa isticmaalkiisa. wuuna ka dambi fudud yahay botonka hard oo isagu dhaawac u geysanaya kaarka ama su-aasha samaysan. marka sidaa ogsoonow, mar walbo aad su-aasha ka jawaabayso, su-aashaas markaad ka jawaabto haddii aad khaladay again u taabo. haddii aad saxdayna waxaa u taabanaysaa good.
ka leexo buttonka hard sidiisaba ha taabanin. buttonka easy-na waa isticmaali kartaa laakiin u isticmaal jawaabaha aad sida fudeydka leh ee degdega leh aad u bixinayso, su'aalaha aad sida degdega leh uga jawaabayso oo kale yacni u isticmaal. waayahay ka socono. okay, marka saddexdaas button sidaasay u kala horta kala yihiin. create deck wuxuu yahay waan aragnay waa inaad khaanad samaysato. khaanadda markaad samaysanaysana waa inaad dabcan magaca waxay ku xiran tahay xogta aad soo wado ayaad ugu magac daraysaa. haddii aad soo wado taariikh aad ka samaynayso su'aalo, folderka aad samayn doonto waxaad ugu magac daraysaa taariikh. haddii aad soo wado Soomaali wax la xiriira ama biology ama dabcan waka qodobka dhexe isna waan soo aragnay waxa uu maaragtay ka turjumayo waana qodobka wuxuu ka tirsan yahay qodobada farakutiriska ah ee u baahan internetka. anki sidiisu waa bilaash waana offline intiisa badan. qodobkan kalena add note waa soo aragnay isagana waa meeshii inputka laga soo gelinaya anki. marka halkaasaan uga soo baxaynaa qaybtan. waxaan soo gelaynaa qaybtan maxaa naga jira dex, cat browser, statistics, night mode, settings. maxay kala yihiin marka waxaan dex waxay ka dhigan yihiin waa folderski weeye. shaashadda aan joogno ayaaba waxay tahay folderski, marka waa inoo dooran tahay. cat browser muxuu yahay? cat browser waxay ka dhigan tahay sida muuqata su'aalahaagii iyo siday u kala ratiban yihiin, meelaha ay ku kala jiraan, waxyaabaha ay leeyihiin, astaamahay leeyihiin. dabcan waa warbixintoodii oo dhammaystiran baad meeshan ka heli kartaa. mid kastaba su'aal kastoo samaysan shakhsiyadeeda ayaad meeshan ka helaysaa. waxyaabaha ay leedahay, waxyaabaha ay la gaarka tahay, waxaasoo idil baa meeshan ku qoran. insha allahu mar baan muuqaal aan ka samayn doonaa. meeshan kale statistics waxay ka dhigan tahay waa tirakoob. dabcan anki wuxuu ku tirakoobayaa sida meesha ka muuqata today wixii aad maaragtay maanta aad markaad soo gashay barnaamijka wixii aad ka dhex qabatay. imise su'aalood baa ka jawaabtay, imisaad khaladay, imisaad saxday, imise daqiiqadood ama intay kugu qaadatay, meeqa daqiiqadood ay kugu qaadatay, waxyaaba noocaas ah. xitaa wuxuu leeyahay forecast oo ah inuu saadaal bixiyo. wuxuu sawir guud kaaga bixinayaa weliba oo uu odorosayaa ama uu saadaalinayaa beri ama saa dambe ama bisha soo socota sida ay wax ku noqon doonaan, iyo kaararka ama su'aalaha lagu weydiin doono inta ay la eg yihiin tiradooda. waxyaaba noocaas ayaa maaragtay uu ku siinaya. marka waa muraayad, waxaan ku tilmaami karaa waa muraayadda anki. waxaad ka heli kartaa sidoo kale intaasoo keliya kuma ekee meelaha aad ku liidato iyo meelaha aad ku fiican tahay, oo markii dabcan uu ku tirakoobayo intaasaad qaaday intaasna waad saxday. dabcan wuxuu kuu sheegayaa meeshii aad ku liidato iyo meeshii aad ku fiican tahay. waxayna fiican tahay marka in laisku fiiriyo imtixaanka ka hor si aad isu qiimeyso naftaada, aad kalsooni buuxda uga qaadato ama aad go'aan uga qaadato. haddii ay ku soo baxdo inaad liidato oo uu systemku kuu sheego in arrimuhu ay sidaa wax yihiin, go'aan waxaad qaadanaysaa inaad isdiyaar garayso ama aad isku tashato ayaad qaadanaysaa. haddii systemku uu wax fiican kaa sheego kalsooni fiican baa ku gelaysa, imtixaankaagana sidaasaad ku geli kartaa kalsoonidaas iyo qabkaas. marka statistics waxaan dhihi karaa waa muraayad aad isku fiirin karto ama aad isku daalacan karto imtixaanka ka hor aad isku daalacan karto. qaababka loo isticmaalana haddii alla idmo muuqaallo ayaan insha allahu kasoo sameynaynaa. aan kasoo socono. halkan night mode-ka ay ku qoran tahay waxay ka dhigan tahay waa night mode. badqabka caafimaadka indhahaagay u fiican tahay. waa shaashadda midabkeeda bedelaysaa. hadda markii hore waxay ahayd caddaan, iminkase waa madow. sidii hore waa kusoo celin kartaa. settingskaan gelinaa markana. settingska markaan galno qodobka ugu horeeya oo kale aan ku dhufano muxuu leeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah optionka ugu horeeya oo kale anki web account. way fiican tahay, aad bay u wanaagsan tahay inaad ku yeelato anki account, inaad ku yeelato adoo emailkaaga isku diiwaan gelinaya.
sababtu waxay tahay haddii lacala mobilka laga xado ama computerkaba laga xado, hadba midkii midkii ankii uu kugu jiro, xogtiina way raacday, aaladii aad isticmaalaysana way kaa waxyeelowday. Marka labadii way israaceen, xogtaada xageed ka raadsanaysaa? Aaladda waa la soo gadan karaa, waad soo gadan kartaa aaladda markaad soo gadato, ama mobile ha noqoto ama computer ha noqoto, waxaa laga yaabaa inay kugu jirto xog aan meel kale laga helaynin oo adiga qaali kugu ah. Marka sidee baad kusoo saaraysaa? Way adag tahay. Marka ahmiyadda uu leeyahay inaad akoon ku yeelato barnaamijkan waxa weeyaan, haddii lacala uu kaa lumo aaladaad ku isticmaalayso barnaamijka anki, mobile ha noqoto ama computer ha noqdee, aalad kaloo cusub markaad soo gadato, aaladaas cusubna aad kusoo degsato anki oo qaawan, aad ku furato emailkii iyo passwordkii aad markii hore aad halkan ku diiwaan gelisay, waxaad awood u leedahay inaad si toos ah ula soo degto ama aad u hesho xogtii kugu kaydsanayd anki ee casharo ahaa. Si kale haddii loo yiraahdo, waa sidii Google Drive oo kale. Google Drive-ka waa naqaanaa, waxaa lagu shubtaa dabcan sawirro, files baa lagu shubtaa. Waa kayd ka madax bannaan mobilka ama computerka ka madax bannaan oo hawada ah. Marka saasay horta muhiimad leedahay. Haddaad ku dhufato halkan ay ku qoran tahay sign up, meeshan ay ku qoran tahay sign up ayaad ku dhufanaysaa. Haddii aad email hore uga samaysatay anki, horaad usoo jiidaysaa, waxaad leedahay emailkaaga ku qor, passwordkaaga ayaad gelinaysaa, kadibna waxaad leedahay login. Haddii aadan ku lahayn sign up markaad tiraahdo, waxaa lagu geyn doonaa insha Allah shaashadana lagu geenayaa. Shaashadda markaad arkayso, waxaad ku qoraysaa halkaas 2 jeer ayaad emailkaaga ku qoraysaa. Halkaasaad 2 jeer gelinaysaa emailkaaga. Markaad geliso kadib passwordkaaga, password baad samaysanaysaa. Dabcan ma aha passwordka emailka uu leeyahay, waa password cusub oo aad anki ku dhex samaysanayso. Passwordkuna ha noqdo mid aad xusuusan karto ku fudud ha noqdo. Kadib waxaad leedahay sign up. Markaad sign up tiraahdo, baqshadda emailka ayaad tegaysaa, kadibna halkaasaa lagugu soo diri doonaa fariintaas waxay leedahay verify button yar oo verify ah. Meel yar oo ay ku qoran tahay verify ayaa jirta, halkaasaad ku dhufanaysaa. Sidaasaa isku diiwaan gelisay, anki web account-na aad ku yeelatay. Marka ahmiyadda ay leedahay saas weeye. Waan ka soo baxaynaa, waxaan tegaynaa bal meeshan wixii tig saar halkan oo kale tig soo saaro. Option-kan wuxuu leeyahay automatic synchronization-ku wax kale maaha, waa in xogta uu kugu kaydiyo emailkii hadda aad gashatay ama cloud storage-kii, inuu si automatic ah ugu guro ayaad u fasaxaysaa barnaamijka anki. Marka way fiican tahay inaad tig saarato meeshaas. Insha Allah muuqaalada xiigi doona ayaanu si fiican ugu faahfaahinaynaa oo aan si fiican ugu fahmi doonaa. Qodobada kale ee muhiimka ah ee halkan ku jira haddaan soo qabanno, halkan oo kale notificationska, meesha ay ku qoran tahay vibrate iyo blink light, way fiican tahay inaad labadaba istaarato, inaad labadaba tig saarto. Waxaad u ogolaanaysaa application-ka inuu ku ogeysiiyo ama uu kuu sheego inay shaqo ku taalo, inay su'aalo ku yaalaan, su'aalo ay tahay inaad ka jawaabto, inay ku yaalaan ayuu kuu sheegayaa. Marka vibration mobilkaaga ama computerkaaga ama mobilkaagu wuxuu sameynayaa, dabcan siba mobilka vibration buu sameynayaa, wuu gariirayaa isagoo muujinaya ama kugu baaqaya inaad inay ku yaalaan shaqo, inay ku taalo, oo ah inaad su'aalo ka jawaabto. Sidoo kale blink light waad shidan kartaa, in tooshka mobilkaagu inuu blik sameeyo isagoo ogeysiinaya inay wax ku yaalaan, inay shaqo ku taalo
ugu yaraan waxaan ku dhihi lahaa vibrationkaas tig saar haddii aadan kan u baahnayn inaad tig saarto. way si fiican tahay inaad labadaba iska saarato. aan ka soo baxno qodobkan reviewing aan imaano. reviewing markaan imaano waxyaabahan oo idil baan rabnaa inaan wax ka bedelno markay la soco. qaybtan kale waxyaabaha ku jira aan isla eegno. new card position ma aha wax hadda aan fahmi karno, waa wax hadhow aan fahmi karno. marka hadda inaan sharxo ima furna. waxaan leenahay marka qodobkaas dhexe ayaa laga rabaa inaad doorato new cards after reviews. waa qodobka ugu fiican. start of next day meeshii aan taabo ku dhawaayun baad insha Allah wax ka bedeleysaa aad la socotid. kan sidiisa ku daa. line head limitkan waxaad hadda waa 20 waxaad ka dhigaysaa ever ama 0 ka dhig. time boxka sidiisa ku dhaaf. new time zone handling isaga tig saar. abbar storekan waad ku dhufanaysaa waxaan ka bedelaynaa isagana. meesha ay ku qoran tahay undo always show sidiisa ku daa. reschedule-ka sidiisa ku daa. flag sidiisa ku daa. edit note kan waxaan leenahay waxaan ka dhigaynaa menu only. edit tags menu only ku daa. add note disable waxaad ka dhigaysaa halkan menu only. replay audio waxaad ka dhigaysaa menu only. card info waxaad ka dhigaysaa always show. maxaa kale meesha ay ku qoran tahay bari waxaad ka dhigi doontaa always show. meesha ay ku qoran tahay suspend sidiisa ku daa. delete-ka sidiisa ku daa. waxyaabahan kale markaa sidooda ku daynaysaa. meeshan waan ka soo baxaynaa marka. abbar buttons bay ahaayeen waxyaabahaasi. keep screen on tig baad saaranaysaa markaad su'aalaha ka jawaabayso ama barnaamijka markaad ku jirto. shaashadu waa inay ku furnaataa macnaha yaysan kaa dimin way fiican tahay. haddii aadan u baahnayn oo aad dabkaaga u naxaysana waad ka qaadi kartaa. full screen mode ka leexo off ha ku ahaato waayo waxyaabo badan bay kaa qarinaysaa. center align waa saar meesha waad tig waa saari kartaa waana ka dhaafi kartaa. waxaan si ku talin lahaa inaad iska dhaafto. show button time tigtu waa inay ku saaranta halkaas. waxyaabahan kale oo dhan waxbaa ka bedelin sidooda ha ahaadeen. waaya wax kale ha isku taabanin. appearance-gaan imaano marka. appearance waa shaashada ay ku fadhiyaan degsku qaabkay u ekaanayso. haddaan aragno hadda waa madowgaas weeye ama waa caddaankaas wax meesha yaala ma laha. laakiin waxaan rabnaa haddaan tusaalahaan u rabno sawir inaan soo gelino background-ka aan sawir ka dhigno ka waran waa ka dhigi karnaa. waxaan leenahay settings meeshii appearance-gaan teginaa. kadib waxaan ka dooranaynaa choose an image meesha background ku qoran tahay choose an image. halkaasaad tig saaraysaa. tig markaa saarto waxaa toos lagu geynaa gallery-ga mobilkaaga ama meelaha sawirada ay ku jiraan computerkaaga ama mobilkaaga. dabcan gallery-gaan dhahno. sawir marka save garaysan ayaad soo qabanaysaa oo aad saaraysaa. tusaalahaan kan oo kale ayaan rabaa aniga inaan soo qabto. sidaasaa marka la igu saaray oo hadda uu ii saaran yahay. aan fiiriyo qaabkaan u noqonaya marka background-ki. qodobkaasna intaasaa ugu muhiimsan. gestureskan wax kale maaha. ahmiyad saasa ma laha oo xoog badan. ha yeeshee wuxuu ka dhigan yahay buttonska lagu qiimeeyo jawaabta. again hard good iyo easy kala ahaa ayaan soo aragnay. halkii aad ka tataaban lahayd oo iyaga aad suulka ama fartaada aad la aadi lahayd oo aad ku dul taaban lahayd. taas bedelkeedu wuxuu ku leeyahay isticmaal shaashadaada oo marna midig u leexi marna bidix u leexi marna muxuu ahaa laba jeer taabo
shaashadaad isticmaalaysaa yani haddii aad tusaale ahaan shaashada midig u leexiso systemka waxaad u sheegaysaa inuu ku taabto button hebel tusaale ahaan again oo kale haddaad bidix u leexisana button kale inuu ku taabto ayaad u sheegaysaa laba jeer haddaad shaashada taabato systemka waxaad ka codsanaysaa in wax kale kuu qabto marka waxay ka dhigan tahay un shaashadaada isticmaal optionkan kale ee advancedka ah isagana waxaa ugu muhiimsan hal qodobkaasna wuxuu ku yaalaa meesha ugu dambeysa meesha ay ku qoran tahay advanced statistics waxaad ka dhigaysaa enable tigta saaraysaa waana ka soo baxaysaa qodobkaas ayaa ah qodobka ugu dambeeya insha Allah muuqaalkeena aan ku soo gunaanadeyno muuqaalkani wuxuu ahaa muuqaal guud mar ah oo aan ku booqanaynay barnaamijka Anki anagoo dhinacyo badan ka taabanay weli waxaan aaminsanahay inay jiraan inaan 100% wax sharaxaada aanan gaarsiinin inkastoo meelaha qaar aan ku dheeraaday oo 80% sharaxaadoodii aan halkan ku bixiyay haddana way jiraan qaar kale oo maqan oo insha Allah muuqaalada xigi doona aan jeclahay inaan ku soo bandhigo applicationka hadda aan sharxinay waa applicationka loo yaqaano Anki Droid oo ah Android version of Anki ama Ankiga lagu isticmaalo mobilada gaar ahaan Androidka ayaan sharxinay sharaxaadan sharxinay barnaamijkan Anki Droidka wax weyn oo sidaas ah ugama doona sharaxaadan sharxi doono insha Allah midka computerka lagu isticmaalo Ankiga computerka lagu isticmaalo wax weyn ugama doona waa iska agdhowyin wax weyn oo sidaas u dhaxeeya oo ay ku kala duwan yihiin ma jiro waxaan arkay arday maaragtay YouTube-ka ku jirta oo qaab aan faahfaahsanayn u sharxaya barnaamijka Anki gaar ahaan midka Anki Droidka loo yaqaano ayaa waxaad moodaa inay dayaacad badan ka jirto ma garanayo ma aqoon gaabni miyay ka tahay oo barnaamijka miyaysan garanaynin ma bakhaylnimo ka tahay waan kala garan waayay hayeshe insha Allah waxaan maaragtay soo gudbin doonaa sharaxaado faahfaahsan oo ku saabsan barnaamijkan Anki Droidka mobilka lagu isticmaalo baylahda looga tagay ama la dayacay sharaxaadiisi si fiican aan loo sharxaynin midka computerka laftirkiisa walow ay u badan yihiin oo ay computerka sharxaan qolooyinka ama ardayda isticmaasha YouTube-leyda ah walow isagana ay sharxaan haddana waxaan dhihi karaa isaga laftirkiisa wax badan oo ay ahayd inay soo qaataan ama ay ku sharxaan ayaysan soo qaadanin oo aysan ku sharxin oo sidii loo baahnaa ayaysan u soo gudbinaynin marka isagana insha Allah waxaan rabaa inaan meelaha ay ka tageen ama ay ilaaween inay soo bandhigaan inaan u bato oo aan aniguna soo bandhigo haddii Ilaahay yaraado insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi